oonka iyo rafaadka iyo silca aniga xataa ma seexda habeenadan indhana isuma keeno waa ka xanuunsanaya ilaahay waxa ooga baryeena ilaahay inuu horta raxmadda ilaahay roobka kamid inuu ilaahay ummadaas roob siiyo ورحمة الله وبركاته مقعيق وحنات 50 هلكا دقيقة ونسان وحنات 50 فضلا هدي يوتيوب كعصوبتها سبسكرايب صار وقبل الكفر هادي أدبا دمنا سنتهاي لابدنا وحن ددوناها فتس لي ويدين دوغنا قوالذا ودالكينا أوارع كجير يولي بسيطة إلو أركان يهدي أي رمان إلا عاوي أما إيقا بأي عاوي رمان سؤاشا سندتك ويدين دوغنا هدو إلهي كدق إن شاء الله وحا إلي دوغتا ماما سوماليات سودو ماما مقعة فرحية علي عبدي فرحية علي عبدي ماما إن واد لا سocota awada waxaan ka hadlaynaa barnaamijka oo ah wadankeena waa la socota in waxa ka jira abaar fara badan dadkii waa la socota ay hoolay inta ka dhamaadeen oo biilaan ayaga naftooda u gaajanaan in maxaad ka leedahay horta adiga in dareenkaada waxaan dareenkayga aad ugu xumahay ummadda Soomaaliyeed iyo haraadka iyo oonka iyo rafaadka iyo silca aniga xataa ma seexda habeenadan indhana isuma keeno waa ka xanuunsanaya ilaahay waxa ooga baryeena ilaahay inuu horta raxmadda ilaahay roobka kamid inuu ilaahay ummadaas roob siiyo maadada labaad muslimiinta waxa ka codsanayna inay ummadaas u gargaarto waa la dhibaataysan yahay xoolihii iyo xawayaankii duurka ku jira iyo ilmihii iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood ay isku meel ku dhimanayaan waa ka danqaneena waana ka xanuunsaneena waxba uma qaban karno kuwa xoolaha haysto hantida haystana ilaahay intay ka cabsadaan ummadaas u gargaaraan ilaahayna waxaan ka baryaynaa ummadaas inuu ilaahay raxmad siiyo raxmadda ilaahay gacan hoob bini aadan laguma dhargay ilaahay inuu ka soo gaarabo ee qof bini aadan mutaysan laakiin in loo gargaaro in la caawiyo dadka islaamka meel kasta ee joogan in la caawiyo ilaahay aan ummadda ku codsanayna oo u baryeena u naxariistaan hadda anaga isku naxariisano waxaan anaga wax nagula tusaa moogiya waligeedba wax dhacay maaha laakiin bini aadanka anaga nagula tusinaya maanta ilaahay waxba nooma weyn laakiin iimaankeena la fiirinayo ummadaas cidii u gargaari karto ilaahay رحمتنا هسي وحي وقرقار كرنا وهالله قبطو هذا ما سنتا ماما والله سعتا إن ودنك حتى إذا عبارة إرفاق كسكجرة أي ضدنا إرادين أنا دورسي يقولي بكرسي إن ما حكى لي ذا ضدك ما ضحنا يقولي بدورسي دمير لهن وواحد دمير لهن وواحد ضدني ما لهن وواحد دنقنين نينك كرسي قرادين محوية ضدك سيابة قاجي إرفاق دي سلع ودي مناعي ما أنت استحلوا جيان ومدوا قرقاران ما وحي وقبطان محاوى كرسي إرادين كرسي مجرى كواسنا ما عملهن إلهي ummadaas wax u gargaar haday damiir leeyihiin dadkooda u danqani lahaayeen waa ka xumahay kan maanta kursiga raadinayna damiir ma lahan afariina u diri lahaa nin walba oo islaam kan kursiga haayan inuu ilaahay ka baqo kursiga dadkaas u haaya ummadaas u haaya in kursiga uu haaya aana dambi ka soo gaar adduunyada qof noolaanaysa male dadka gaajada iyo rafaadka u baaba'ay nimanka Soomaaliyeed ee kuraasta u taagan ama inta ku jiraan ama meel walba ku jira ama Soomaaliya joogan ama halkan joogan ani waxa dhiila inay ummadda abaaraha ku dhacday u gargaaraan salaamu calaykum aad uma santahay maam adigana sida barnaamijkan u qaybgashay soo dhow thank you waxa ay la jooga nin macallin soo dhow horta macallin magaca waxa la yaa walaal maxamed xasan baa la yiraahdaa maxamed xasan maxamed xasan waxaan ka hadlaynaa barnaamijka ka jirto wadankeena iyo dhammaan meelaha qaar waxa ka jira saa la socotid waa abaare iyo waliba baahiyooyin fara badan coona ka jira iyo dadkii hoolay intay ka dhamaadeen waliba ayaga nafsadooda saa la socotidba halkaas dhibaato badan ka jirta ugu horeyn adiga maxaad ka leedahay horta ugu horeyn waxaan ka leeyahay arintaas dhibaatooyinka jira abaaraha jira khaasatan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysata waxaan leeyahay waa wax ayaga ay kasbadeen سؤال الله سبحانه وتعالى كتاب كيس عزيز كأنه شاقي وحيري وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مصيبة إذا ما أصيبته إلا أعضاء أصيبته وأعطوا إذنكم على كسبتين وجمعين يلوغين على كسبتين ومع ذلك هذا الله سبحانه وتعالى وحليم والرحيم وإله سبحانه وتعالى وحيري ويعفو عن كثير إن بدن إلى ويدك عفية سادرتد وعلى هاي أبارة إنها يستا هي امتحانا إنها يستا وواحد إنك وأنو كسبني
marka waxaa lagu imtixaamay innakana abaaro iyo jirooyin ma garanaysaa aan afkooda la aqoonin jirooyin aan la arki jirin baa imaaday sidaa darteed waxaan leeyahay diintan islaamka aynu u noqonno beenta ha la iska daayo khayaanaha ha la iska daayo dulmiga ha la iska daayo dhiigga islaamka ee la daayanaya ha la daayo waxa kale iska daaya dadka muslimiinta ah isbanaysay dhiigoodii ma fahantay saa darteed waxaan haysataa cadho ilaahay baan haysataa yaa dhihi karaa marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ahaa fariintaan u faraya waxa weeyaan inaynu ilaahay ka cabsanno kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam aan u noqonno marka waxaan leeyahay ilaahay aan ka cabsanno diintan islaamka aan u noqonno intaas ayaan barnaamijka uga baxaya anigu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsantahay adigana sida barnaamijka uga qayb gashay soo dhowow waa dhow walaal waa mahadsan tahay aad iyo aad baa u mahadsantihin sida wanaagsan barnaamijka macruufka ah khayrka ma garanaysaa aad noogu soo jeesteen maxaa waxa dadku waxay isu kaalmaystaan qaybo ka mid ihi munkarka iyo waxyaalaha xunka dulmiga ah haddii ma garanaysaa macruufka iyo khayrka aynu isu kaalmaysano munkarkana aynu reebno waa mid ilaahay subxaanahu watacaala uu amray marka waxaa ilaahay idinkana waa mahadsantihiin ninaan bilwaadma u mahadcelin ilaahna oo mahadnaqaa layidhi shukran lakum baan ilaah asalaamu calaykum waalaikum salaam waa tahay waxaa ila joogaa nin dhallinyara soo dhow horta saaxib magaca saaxib waa dhawa magacayga waa Siciid Axmed سعيد أحمد سعيد عوض برامج كدتك ويدينين وحواي ولا صعتا ودن كين حب أبد ناداني قبل هذا وحى كجرا أوارا يولب يباهي وأنا أنت لو سوى كوب كرين إن أجهرين سدا وراك تفرت هذيك والله ما شاء الله وحاد لو حماده ربلان بدن باجرت أوارا بدن ويجران ودنك حالد سوءات بوحن شاي بيلان بحسن باجرت مركا de arrin waxa way waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu roob keeno dadkan abaarta ka saaro de ummadda Soomaaliyeed Kenya kuna wax laga rabaa inay gargaar muujiyaan dadkaas in la caawiyo muhiim ah in dad badana yaani oo TikTok ku jiro oo waliba lacaga siyaabo kala duwan u dhiiba oo yaani iskaga baashaala dadkaasna waa la socotaa in rafaadada saad sheegtay in dhibaatadaas halkaas ka jirta in maxaa uu la dardaarmi lahayd dadkaas oo waliba in saas ay sameeyaan TikTok lacagta walahi ma sha Allah leer Soomaaliyeed oo qalbi wanaagsan waxaan ku baraarujinayaa lacagahaas ma garanaysaa sida fudud ku soo galaya inay walaalahood ku caawiyaan waxana ugu taraan de kole waa wax meel fiican u galaya way marka inta ku boorinaya aad iyo aad u mahadsan tahay sida barnaamijkan ugu qayb gashay maxaa leedahay ummadda Soomaaliyeed oo waliba muuqaalkan daawanay walahi ma sha Allah de waa xilli walaalahay noo baahan ba ku jirnaa in hordada laga kaco waa in la caawiyo way haddana maanta inaga caawinaysa ma lahan marka saasan ku walaalayn ku boorinayaan hada uma santaday ina soo dhow adiga ma saacad waa tahay waxaan la joogaa nin la yiraahdo soo dhow horta saab magaca brother Mukhtar Jibril Mukhtar awada su'aalan dadka weydiinayna oo ka saabsan wadankeena hab u badnaadeen gobolada Soomaaliya waxa ka jira saar la socotid ba awaara fara badan iyo waliba dadka waxa ka dhamaaday hoolihii iyo waliba raashin ay iyagu cuni lahaayeen sida u aragto horta ugu horeen adiga arrintaasi aad iyo aad aan ugu xumahay ka dhalinyaro ahaan aad ay noo saameynaysaa fikirkeyga ahaan haddii arrintaasi soo laalaabanayso mar waliba way soo laalaabataa dhalinyaro ahaan iyo ka bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed inaan isku tashi aan sameeyno mar walibana aanan ku tashanin dawlad marka waxa ila wanaagsan mar waliba ka shacab ahaan inaan isku tashano wax waliba waxa fiican marka hore inaad ka hortagtid biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa Soomaalida dhahdaa marka waxaan rajayn lahaa Soomaalida inay marka horeba inay ka sii gaashaamtaan inkastoo wax abaartu ay tahay wax xagga Rabbi masiiba la isku imtixaamayo laakiin waxa fiican inaad dadka dadaalkooda bixiyaan ka hortag sameeyaan waa ma santahay waad ogtahay wadankana doorasho ka jirta dadkiina abaaray iyo waliba biilaan irfada u dhimanaan maxaad dhihi lahayd dadka noo ah madaxda fariinta anta u marin lahayd maxay dadka madaxda noo ah waxaan fariin ahaan aan ugu diri lahaa waxaad wax ku tihiin bulshada Soomaaliyeed ayaga in waxa leedin doortay in ayaga u shaqeysaan maan inaad ka shaqeysataan marka waxaan ka codsan lahaa qof kasta oo Soomaaliyeed karaankiisa inuu ku bixiyo si bulshadaas tabaalaysan
ay u garab qaban lahaayeen teeda kale hal fariin ayaan rabaa inaan halkan ka diro gaar ahaan dhalinyarada baraha bulshada isticmaasho dhalinyaro waxaa jirto gaar ahaan barta tiktoka waxay ku bixiyaan waqti aad u badan qarash aad u badan kaga baxo dhalinyaro ayaa geemam ciyaarto geemkaasi waxaa ku baxo lacag aad u badan halowbeen waxay ku qarash gareeyaan intaasoo $1,000 waxay ku bixiyaan waxyaan aan munaasab ahayn sida qabiil ama in lees caayo lees aflagaadeeyo marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed bulshada waxay sugaysaa idinka waxaan rajaynayaa inaad arintaasi aad ka waantootaan aad bulshadiina wax u qabataan intaasaan kaga bixi lahaa waa tahay waxaa ila joogaa nin dhalinyara soo dhow horta magaca magacayga waxaa la dhahaa Xuseen Maxamed Ibraahim Xuseen in awada barnaamijka dad weydiinayna oo ah waa la socotaa wadamada Soomaaliya wadanka Soomaaliya aan yiraahdee waxaa ka jirta gobolada waxa u badnaatay abaar oo xoogan waliba baahi iyo biilaan iyo hoolay dadka ay ka dhamaadeen sidee u aragtaa adi ugu horeyn aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa sida qiimaha badan ay ugu soo dhaweysay walaal waa runta wadankeena ilaa muddo abaar baa ka jirta abaartoo soo saamaysay dad iyo duunyo abaartaasoo dhibaato weyn u geysatay nolosheenna marka waxaan leeyahay ilaahay baa ka bixin karaa dadkaas walaalahayga ah marka waxaan leeyahay kasakow dowladda iyo dadka dhaqaalaha qabo ama dadka xoolaha leh waa inay walaalahooda ay tabarucaad ay u sameeyaan walaalahooda ay caawiyaan ayaan dhihi lahaa aada u mahadsan tahay sidaa ii sheegtayba adaa ka imaaday dhankaas iyo weliba meesha abaarta ay ka jirto intee ka imaad horta ama intee aniga walaal waxaan ka imaaday hadda xarooyinka qaxootiga Dhadhaab gaar ahaan xarada qaxootiga Dhagaxley dhammaan Dhadhaab iyo daafaheeda dhan iyo Kenya dhanba aan ku dhihi karaa abaar xun oo baaxad weyn baa ka jirta dadkii xoolihii ayaa dhamaanaya sidii geeli arigii iyo loodii marka dhibaato weyn baa ka jirta xagga Northeastern oo especially xarooyinka Dhadhaab agagaarkeeda marka dhibaato weyn baa ka jirta walaal dadkii xoolihii hadda inay dhamaadeen hadda waxa ma garanaysaa bini'aadamnimadii oo dadkiiba ma garanaysaa halis ku jira inay macluul dareen u dhintaan aad iyo aad u mahadsan tahay waa la socotaa dalkana waxaa ka jirta doorasho dadkiina sidaas ay u dhamaanayaan waliba hoolay iyo arigay maxaa fariin u dir dadka madaxda noo ah waad mahadsan tahay dadka madaxda noo ah kuwa Soomaali jooga waxaan fariin u diri lahaa inay dadkooda walaalaha ee masaakiinta ah waa inay aad garab ay siiyaan maxaa yeelay xilligan waa xilligii ay dadka masaakiinta inay garab istaagaan loo baahan yahay fariinta kale oo wadanka dadka laga soo doortay wadanka Kenya aan fariin u diray waxay ka mid tahay dadka hadda way dhibaataysan yihiin xilli waxaa lagu jira doorasho balse waxaa muhiim ah oo lama huraan ah xilligan doorashada soo dhow inay dadka hadda wax loo qabto maxaa yeelay hadda dadka beritoole qofka waxaad ka rabtaa kuuru uu kugu codeeyo haddana dhibaatadiisa haddii aan la qaybsanin hadhow boqolkiiba 99 qofkii codkiisa ma helaysid maxaa yeelay hadda ayay baahi haysaa macluul darri haysaa hadda ayay xoolihii ka dhammaadeen waxaa la sheegayay agagan Dhobley inta ka sokayso nin lahaa 650 neef oo lo ah waxaa dhacday linkii inuu 20 neef hadda uu leeyahay intii kale ay ka dhimatay marka dhibaatooyinkaas dhan dadka heestaan marka waxaan dhihi lahaa ani madaxda inay ilaahay ku roon yahay madaxda inay dadka ay caawiyaan aada u mahadsan tahay maxaa leedahay ummadda Soomaaliyeed oo dal iyo dibadda joogaan fariin maxaa inta u diraysaa fariin waxaan u dirayaa dal iyo dibadda inta ummadda Soomaaliyeed iyo inta diinta ma garanaysaa ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah leh dadka walaalahooda masaakiinta ah kuwa Kenya jooga iyo kuwa Soomaali jooga inay gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan aad iyo aad u mahadsantahay adigana sida barnaamijkan uu qayb gashay soo dhawaan kuleena waana kaaga mahadcelinaynaa adigana waad mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinahay sida qiimaha badan ay ugu soo dhaweysay waa tahay ugu dambeynta asxaabta daawashada muuqaalka haddii aad ka hesheen laagta iyo sheerta ugu dadaala aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddii intaan bal noola soo gaarteen waxaan idinku codsanaynaa anagana inta ilaahay wax sii iyo inta muuqaalkan daawata waxaan leenahay inay muuqaalkan sheer gareeyaan
waxaa laga yaabaa dad badan oo meel ay lacag ku soo diraan ama qaab ay wax u dhiibaan ay laasiin inay ku baraarugaan oo weliba ummaddan ay garab siiyaan ayaa laga yaabaa ilaahay wuxuu yidhi qofka markay isku gargaartaan ayaa anigana idin gargaara waxaan idin leenahay ummadda ha loo gargaara intii ilaahay wax sii $1 haddaa bixisad aakhira wax weynay ka tahay aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan intaa muuqaalkan kiis kale ku kulmi doonaan waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo